wararka ugu waaweyn ee baraha dadweynaha ay ku xidhan yihiin ee social mediaha oo aynu eegi doonno haddii eebweyne raalli ka noqdo saaka waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay dalka kenya ayaynu eegaynaa saacadihii aynu ka soo gudubnay waxaa cirka isku shareeray doodda iyo sidoo kale cambaareen caalami ah oo inta badan hawada dusha looga tuurayay dil la sheegay in lagula kacay weriye ka soo jeeda dalka bakistan markii labaad xukuumadda william ruuto waxa ay wajahaysaa cadaadis xagga diblomaasiyadda waxaana tani ay daba socotaa kadib markii madaxweynaha dalka bakistan uu qadka telefoonka kula soo xidhiiray madaxweynaha dalka kenya william samoy ruuto kaasi oo ka codsaday in dowladdiisa ay baaritaan ku samayso sida ugu dhaqsiyaha badan jawaabna ay kaga bixiso dilka la sheegay in lagula kacay weriye ka soo jeeda dalka bakistan kaasi oo lagu dilay gudaha dalkani kenya laguna magacaabo arshaad shariif ayaa lala xidhiidhinaya dalkiisa ciidamada booliiska dalka kenya kadib markii laamaha ammaanka ee dalka kenya ay ka warbixiyeen warqadda ay soo saareen qaabka uu dilkaasi u dhacay iyagoo sheegay in si kamah ah ama si aanu ku talagal ahayn loo fuliyey dhacdadaasi haddaba ra-iisul wasaaraha dalkaasi bakistan shehbaaz shariif ayaa waxa uu sheegay in markaasi dowladdiisa ay wajahaysay cadaadis xooggan oo dhanka shacabka iyo wariyaasha iyadoona ka dalbanayso in xukuumadda william ruuto ay si dahfurnaan ay ku dheehan tahay baaritaan ugu samayso dhacdadan si loo ogaado xaqiiqada dhabta ee dhacdadan ku saabsan waxaana uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu sheegay inuu qadka telefoonka kula xidhiidhay madaxweynaha dalka kenya william samoy ruuto oo ay ka wada hadleen dilka arshaad shariif waxaana uu ka dalbaday in baaritaan dahfurnaan ay ku dheehan tahay lagu sameeyo dhacdadaasi ciidamada booliiska dalkani kenya iyo shalay bayaan ay soo saareen islamarkaan lagu soo daabacay barta twitterka iyo baraha kala duwan ee bulshada waxay kaga warbixiyeen dhacdadan waxaana ay sheegeen in qaar ka mid ah saraakiil booliis kuwaasi oo iyagu ilaalo ka ahaa goob markaasi jidgooye ah oo u dhexaysa waddada magadi road iyo kajiado ay markaasi fuliyeen amarkaasi ama ay fuliyeen sharcigan ama dilkaasi iyaga oo markaasi ku raajoogay qaar ka mid ah eedeysanayaal loo soo gudbiyey kiiskooda ku aadanaa in baabuur ay ka soo xadeen shakhsi markaasi ku sugnaa magaalada nairobi ciidamada booliiska ayaa baaritaan ku sameynaya arrintan waxaana ay markaasi si aan ku talagal ahayn baabuurka uu sitay shariif ay markaasi ugu khaldameen iyagoo rasaas ooda kaga qaaday baabuurkaasi kadib markii ay sheegeen in darawalka gaarigaasi kaxeenaya uu markaasi ka biyadiiday inuu gaariga isjaajiyo islamarkaana uu si aada u kaxeeyey baabuurka halka ciidamada booliiska waddanka ay iyaguna kuwaasoo ugaarsanaya kooxo la sheegay in gaari ay ka soo dhaceen xaafad ku taalla magaalada nairobi islamarkaana si khalada uu ku dhacay dalkaasi waxaana ay sheegeen gaarigan waa nooca toyota lankuruza loo yaqaano islamarkaana u ekaa gaari la sheegay in lasoo dhacay ay ciidamada booliiska la kulmeen wariyahan oo markaasi baabuurkaasi kaxeynaya weliba darawalka uu kaxeynaya si xoog ah iyada oo ciidamada booliisku ay sheegeen in dhacdadaasi ay sidaasi ku dhacday hase yeeshee waxay booliisku ka warbixiyeen gaari laga soo dhacay xaafad ku taalla magaalada nairobi gaarigaasi oo uu saarnaa ama uu ninkii ama mulkiilaha gaarigaasi uu meel markaasi bakin ah gaariga inta uga tagay gaarigaasi waxaa gudihiisa uu ku jiray wiil ninkaasi uu dhalay ama mulkiilaha gaariga sida uu afayeenka ciidamada booliiska dalka uu kaga warbixiyey waxaana uu sheegay in mulkiilaha gaarigaasi uu booliiska ku wargeliyey dhacdo gaari looga xaday waxaana sidaasi ay ciidamadu ku howlgaleen iyagoo ku raajoogay burcad la sheegay in gaari ay soo dhaceen kana soo dhaceen shakhsi ka mid ah shakhsiyaadka degan magaalada nairobi islamarkaana gaarigaasi gudihiisa uu ku jiray wiil uu dhalay kaasi oo rumaysan yahay in la afduubtay si kastaba haatee ciidamada booliiska waddanka ayaa waxa ay sheegeen axaddii habeennimada axadda ay soo gelisay abbaara 10kii fiidnimo in dhacdadaasi ay ka dhacday inta u dhexaysa magaadhi iyo sidoo kale kajaadho tani waxa ay daba socotaa xilli isbuuciyadii aynu ka soo gudubnay waddanka si aada walaac looga muujinayo korarka ku yimid dilalka sharci darrada ee lala xiriirinayo ama lagu tuhunsan yahay in ay geystaan ciidamada booliiska dalka kenya
dhowaan ayayd markii madaxweynaha dalka william ruuto uu ku baaqay in la buriyo ama la burburiyo laan u qaabilsaneed waaxda d c i-da dhanka dilalka sharci darrada iyo sidoo kale falalka afduubka, waxaana uu sheegay in baaritaan xooggan oo qoto dheer lagu samayn doono iyada oo miiska wadahadalka islamarkaana maxkamad lasoo istaajin doono qaar ka mid a eedeysanayaasha lala xidhiiriyo ama lagu helo dacwadahan kala duwan ee ku aadan in dilal sharci darra oo waddanka laga fulinaya ay ku lug lahaayeen. haddaba laantan waaxda d c i-da ka tirsaneed oo loo soo gaabiyey s s u ama special service unit ayaa ahayd laan sida uu madaxweynaha dalka sheegay lagu tuhunsanaa in ay qayb ka ahayd falal kala duwan oo lagu dilay dad shacaba iyo ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee waddankana laga fuliyey, iyada oo sidoo kalena falalkaasi ay isugu jireen afduub, falal dad la laasanaa kuwaasi oo muwaadiniin waddankani kenya u dhashay ka mid aha. waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli markaasi dhowaan la sheegay in muwaadiniin u dhashay dalka hindiya kuwaasi oo xilligii doorashada dalka kenya ay ka dhacisay horaantii bishii agoosto sanadkan 2022 soo gaaray waddanka kenya, islamarkaana la sheegay in laga afduubtay hotel lagu magacaabo olesereni hotel oo kaasi oo ku yaalla waddada mombasa road ee bartamaha magaalada nairobi. 23 julay ayay ciidamada booliisku heleen kiiskan ku aadan in ay maqan yihiin shakhsiyaad muwaadiniin ah kuwaasi oo iyagu u yimid dalka kenya si ay ugu biiraan kooxda ololaha doorashada william ruuto ee qaybta dijitaalka amaba isgaarsiinta. hase yeeshee muddo 10 maalmood oo aynu ka soo gudubnay qoysaska ehelada dalka dadkani ka soo jeeda dalka hindiya ayaa waxa ay ku cadaadinayeen dowladaha sida kenya iyo hindiya in arrinkan baaritaan ay ku sameeyaan, sidoo kalena iyaga oo la wadaagay xogta dadka ka maqan ehelkooda ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi hindiya narendra modi si uu dowladda kenya kala hadlo dhacdadan si cadaalad loogu helo kiisaska afduubka ee lala xidhiiriyey qaar ka mid a booliiska dalka kenya. si kastaba haatee shalay ay ahayd markii dalkani kenya shakhsiyaad kala duwan la soo taagay maxkamad ku taalla countiga kiambu ee jaarka la ah magaalada tan nairobi, kuwaasi oo intooda badan isugu jiray 4 shakhsi kuwaasi oo lagu eedeynayo in ay qayb ka ahaayeen dilka muwaadiniinta ka soo jeeda dalka hindiya, kuwaasi oo tir ahaan gaaraya 2 iyo sidoo kale daroolkooda oo markaasi ah muwaadin u dhashay dalka kenya. haddaba maxkamaddu shalay waxa ay gorofeysay kiiskan iyadoo dhinacyo kala duwan booliiska u soo gudbiyey kiiskan ay ka dalbanayeen in shakhsiyaadka ilaa 4 qof lagu eedeeyey ku lug lahaanshaha falalka afduubka iyo dilka muwaadiniinta dalka hindiya ka soo jeeday in lagu sii hayo xabsi ku yaalla gudaha countigaasi kiambu muddo 30 aan yidhaahdee maalmood si baaritaan dheeraada loogu sameeyo dhacdadan. haddaba sarkaalka baaritaanka u qaabilsanaa ee michael kirui oo isagu shalay soo gudbiyey warqadda dhaarta caddeynta markhaatiga dacwaddan ayaa waxa uu sheegay in 3 markaasi eedeysane ay iyagu markaasi ay suurtagal tahay 3 aan yidhaahdee muwaadin sida 2 muwaadiniinta ee kale ah muwaadiniin dalka hindiya ka soo jeeday iyo 1 darawal suuragal ay tahay in dilkooda uu qayb ka ahaa ama uu sababsaday arrimaha dhanka booliiska. waxaana sidoo kale warbixintaasi lagu faahfaahinaya arrintan oo ay doonayaan booliiska inay wax ka ogaadaan tafaasiil dheeraadna ay ka helaan cidda ku lug lahayd, iyadoo sidoo kalena lagu toonsan yahay in laantaasi ciidamada dambi baarista u qaabilsaneed dhanka falalkan iyo qorshayaashan kala duwan ee dilalka sharci darrada ee qorshaysan ay suurtagal tahay inay ku lug lahayd. haddaba shakhsiyaadkii la soo taagay maxkamadda ayaa kala ah mr peter mudhee gashiku, francis muendo ndenye, john mwangi kamau, joseph kamau mbugua. waa ilaa markaasi 4 muwaadin oo ka tirsanaa laanta ciidamada dembi baarista dalkani kenya ee d c i-da, kuwaasi oo lagu toonsan yahay in ay qayb ka ahayeen dil iyo afduub loo geystay maxamed saciid sami iyo zulkifaar axmed qaan, kuwaasi oo ka soo jeeda dalka hindiya, iyo darawalkooda oo lagu magacaabo
nicodemas muania, kuwaasi oo markaasi la sheegay in bartamihii sanadkan bishii luulyo lagu afduubtay hotel ku yaala bartamaha magaalada nairobi ilaa imikana lagu raadjoogo halka ay jaana cirib dhigeen iyadoo baaritaan lagu sameynayo dilkooda. ciidamada booliiska dalka ayaa shalay markaasi waaxda booliiska u qaabilsan baaritaankan ayaa waxa ay sheegeen in baaritaan ay ku sameynayaan dhacdadan laan la yidhaahdo internal affairs unit oo u qaabilsan arrimaha gudaha ee booliiska si shakhsiyaadkaasi xabsiga loogu sii hayo muddo 30 cisho islamarkaana taniyo inta dacwaddan laga soo gebagabeynayo booliiska ay fursad dheeriya u helaan. haddaba haddii aynu ku soo noqonno dhacdada shakhsigan dalka bakistan ka soo jeeday, qaar ka mid ah muwaadiniinta iyo wariyaasha ka soo jeeda dalka bakistan ayaa mudaaharaad iyo dibadbaxyo waaweyn ka dhigay qaybo ka mid ah magaalada islaamabad ee dalkaasi bakistan, iyaga oo ka dalbanaya dowladda kenya in ay sida ugu dhaqsiyaha badan baaritaan ay ugu samayso dhacdadan dilka. sidoo kale laamaha u qaabilsan baaritaankii dabagalka howlaha booliiska ayaa iyaguna siyaabo kala duwan baaritaan ugu sameynaya dhacdadan. saacadii aynu ka soo gudubnana baraha kala duwan ee bulshada ayaa qoraallo kala duwan la iskula dhex maraya, haba ugu badnaatee dalkaasi markaasi bakistan iyo sidoo kale dalkani kenya oo iyaguna qaar ka mida wariyaashoodu ay aad uga falceliyeen dhacdadan, sidoo kalena ay ka hadlayeen arrintan. sidoo kale waxaa ka mid ah haddaba qusuulka u qaabilsan safaaradda bakistan ee dalka kenya, taasi oo ka dalbatay dowladda kenya in ay baaritaan ku samaysa arrintan. sidoo kale waxay sheegeen in imika kadib baaritaankii hordhac ahaa ee lagu sameeyey meydka arshaad shariif imika ay heleen ogolaasho ku aadan in meydka ay u duuliyaan dalka bakistan si halkaasi aas loogu sameeyo. haddaba arshaad shariif waa muwaadin dalka bakistan ka soo jeedo islamarkaana muslim ah oo la doonayo in sida shareecada islaamka ay qabto la waafajiyo meydkiisa iyo qabanqaabada aaskiisa. haddaba arrintan waxay ahayd mid saacadii aynu ka soo gudubnay si aada looga hadalhayay. haddaba ninkani haddii in yaroo kooban aynu ka eegno wariyahan ka soo jeeda dalka bakistan ee indhawaalaba ku sugnaa dalka kenya ayaa laleeyahay ma aan markii ugu horreysa uu soo gaaro gudaha countigaasi kajaadho goob markaasi uu ku sugnaa nin ay isku markaasi ehel aayeen ayna saaxiib aayeen uu dhowr maroo hore booqasho ugu yimid, waxaana leeyahay wariyahan waxa uu wajahayaa cadaadis kaga imaanaya dhanka dowladda dalka bakistan kadib markii uu iminka dibadda keenay dhacdooyin kala duwan oo la xidhiidha musuq maasuq baahsan oo mas-uuliyiin sarsare ay ku lug leeyihiin, isagoo dhowaanba doonaya in uu shaaca ka qaado documentary ama warbixin toos markaasi u wajahaysa madaxda sarsare ee dalkaasi bakistan. haddaba bakistan iyo sidoo kale hindiya waa laba dal oo xifaaltan iyo xurguf soo jireena ay kala dhexaysay, dagaal sokeeyana uu ka dhex qarxay intii u dhexaysay sannadihii 1947 ilaa 1999. inkastoo ay yihiin laba dal oo jaar ah, haddana waxay ahaayeen dalal aad isaga soo horjeeda diblomaasiyad ahaan iyo sidoo kale arrimaha dhanka dowladahooda. qaar ka mid ah shakhsiyaadka dalka bakistan ka soo jeeda ee wariyaasha ayaa ku dhaliilaya dilka shakhsigani in uu la xidhiiro markaasi falal kala duwan iyo dhacdo markaasi kala duwan oo dalkaasi bakistan uu isagu ka soo tabiyey. arrimahaasi ayaa ka socotay baraha kala duwan ee bulshada saacadii aynu ka soo gudubnay. waan filayaa in dhacdadaasi aad ka bogateen waxay ku soo kordho waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibadayaasha aynu jecelnahayo.